بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال soo dhawaada halkan waa bartaan ku leenahay YouTube-ka sidoo kale barteena Facebook-ga ayaad muuqaaladeena ka daawan doontaan dadweynaha wadada raali ka aad waa tahay dhageystayaal saaxiibayaal waxaanu idin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay ee dalkeena Soomaaliya si gooni ah warkan waxaynu uga hadli doonaa guutooyinkii ciidanka ahaa ee laga soo celiyay dalka Eritrea kuwaas oo dhowrkii sano ee la soo dhaafay ku jiray Arbis iyo tababar ay dawladii hore ee markaasi hogaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ugu qaadeen wadanka Eritrea kuwaas oo dhawaan soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkeena hooyo isla markaana xaaladooda ay ku sugan yihiin ay keentay inay sameeyaan gadood ciidan oo aad xoog badan isla markaana ay kaga soo horjeedaan xuquuqdoodii iyo xaqoodii oo la dusiyay haddaba daawadayaal wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka hooyo ayaa waxay soo warinayaan rasaas laga maqlay qayb kamid ah magaalada in maanta ay ahayd gadood ciidan oo aad xoog badan oo ay sameeyeen ciidamadii commandosta ahaa ee lagu soo tababaray dalka Eritrea kuwaas oo dhawaan la keenay dalkeena Soomaaliya waxaana la soo warinayaa in ay ciidamadu maalmahanba wadeen gadood ciidan iyo tabasho aad u weyn oo ay ka wadeen gudaha xeryaha ciidan ee ay ku sugan yihiin oo ay kamid tahay xerada tababarka ee General Gordon haddaba daawadayaal wararkii ugu dambeeyay oo naga soo gaaray magaalada Muqdisho gaar ahaan xubno ka agdhow ciidamadaas isla markaana qaraabo dhow la ay noo sheegeen ayaa waxay xaqiijinaysaa in ciidankan oo haatan in muddo ah ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka hooyo isla markaana dhawaan ku soo guriyo noqday wadankoodii Soomaaliya kadib muddo badan oo ay maqnaayeen ilaa ay hadda inay laayihiin xuquuqdii mushaaraadkii iyo xaqii ay ku lahaayeen dawladda federaalka ee Soomaaliya iyaga oo nolol adag ku soo tababartay xaalad adagna soo maray waxa wararku ay sheegayaan ilaa ay hadda inaan xuquuqdoodii meel la saarin toddobaadyadana ay wadeen gadood ciidan oo aad u xoog badan taas oo ay ku tabanayaan in xuquuqdii iyo xaqii ay lahaayeen in ciidankan meel la saaro dhawaan ay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku booqday ciidankan mid kamid ah xeryaha ciidan ee ay ku sugan yihiin sidoo kalena uu ka war khudbadeeyay iyadoo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre laftigiisu uu booqday ciidamadan isla markaana ay u muuqanayeen kuwa igu sawir iyo muuqaalo inay isaga soo duubaan ugu tagay ciidamada ayaa ka cabanaya sida wararku ay sheegayaan garaamkooda xuquuqdooda nafaqadooda saadka iyo waxyaabaha ay helayaan iyo sidoo kale guud ahaanba inaysan wax xuquuq ah ilaa ay hadda aysan haysan haddaba arrinteenu isdul taagayno ayaa waxay tahay iyadoo dalkeenu ku jiro xaalad dagaal oo aad u adag askartana ay yihiin kuwa muhiim u ah xoreynta wadanka Soomaaliya sababaha ay u soo tababarteen ay tahay difaaca dalkooda ma tahay in maanta ay ka hadlaan amaba maanta laga murmayo oo ay markaasi laga hadlayo xuquuqdii askartan maxaase ku kalifay dawladdan curdinka ee cusub ee waxa ka yar 10 bilood joogta in ay maanta bixi weyso mushaaraadka ciidamadan ee xaqlayaasha ah ee xuquuqdoodii iyo xaqoodii ilaa ay hadda aan la siin dhalinyaradan oo wali muddo badan dalkoodii ka maqnaa ku soo laabtay hooyooyinkood maanta laga yaabo hadii mushaarku askarigu uu helo inuu hooyadii oo muddo ka maqnaa uu markaasi wax taro ama qaarkood laga yaabo in xaasas ka maqnaayeen arrimaha haddaba arrintan ka dambaysa ayaynu dabagal aad u xoog badan ku sameynay waana musuqmaasuq wax waliba waxa ay leeyihiin bar ay ka bilowdaan iyo bar ay ku dhamaadaan dawlad kasta oo hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh walow hadda talaabo aad u wanaagsan dawladdu dhanka dagaalka al-shabaab ay ka qaadayso kacdoon shacab ay ka faa'iideystay ciidamadii dawladda ay dagaalada iyo furimaha ka qayb galayaan haddana waa dawlad musuqmaasuq oo ilaa ay hadda waxa ay xuquuqdii mushaaraadka u laayihiin iyadoo waliba lacag badan ay soo gaareen khasnada dawladda oo deeqa caalam iyo sidoo kale lacag badan oo malaayiin dollar ay soo gaareen ilaa ay hadda arrimaha ku kalifaya in aysan xuquuqdii ciidanka Eritrea ka yimid aysan sixin waa musuqmaasuqana waa wax dhaqan u ahaa damujadiid horena ugu ahaa jiray haddana waa marka waxa laga digayaa in ay markaasi arrintan iyada ah ay tahay arrin cawaaqib xumo keeni karta iyadoo waliba dawladii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh uu hogaaminayay ee damjadiid tripkeedii hore lagu lahaa mushaaraad 9 bilood gaaraya waxaana halista ugu weyn ay tahay daawadayaal ma jeclayn inaan media ka sheego laakiin halista ugu weyn waxay tahay ayaa la leeyahay ciidamadii inta la soo carbiyeynayay ee intaasoo kun oo kiiloomitir ama mayl uga gudbay dalkooda in ay ka tagaan shaqadii ciidanimo waliba wararka khatarta ah ee dhilada ah waxay tahay oo soo gaaraya askar kamid ah ciidankan inay xeryaha si xoog ah uga daateen oo ay gabi ahaanba hadda ka tageen oo ay xaafadahoodii aadeen maadaama aysan garanayn meel askariga xuquuqdiisa iyo mushaaraadkiisa iyo noloshiisa iyo sidoo kale ka warqabkiisa iyo haddii wax soo gaaraan ka warqabkiisa cid u damaan qaadaysa maadaama aysan hayn ilaa hadda
maxay tahay sababaha ay tahay in arrimaha ay tahay ama talaabooyinka ay tahay in dawladda hore kaga daydaan madaxda haatan jooga ee qaranka hogaaminaya dawladda hore waxay caan ku ahayd oo dhaqan u ahayd waa dawladda hore ee nabadda nolol askari kasta in la ilaaliyo xuquuqdiisa mushaaraad in loo sameeyo kaarar ay si toos u qaataan mushaaraadkooda ugu qaataan in askartaas si billa ah looga warqabay xuquuqdoodana ay helayeen xilliga ugu munaasibsan bisha iyadoo 22 ay tahay inay gaarayeen in askari kasta lagu sameeyay diiwaan gelin in lagu sameeyay farayo indhay laga qaaday in kaar uu lahaa bangi oo ay ugu dhacayaan mushaarkiisa isagoo furmaha jooga in xataa askariga dhinta oo tiis soo gasho iyadoo wuxuu marka hore wax badan aysan ahayn hase yeeshee mushaarkii xilliga la kordhiyay in uu helayay askarigu haddii uu dhintana xuquuqdaas ay waalidkii dadkiisa qaadanayeen haddii uu noolaadana uu isagu qaadanayay arinta iyada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo markii ugu dambeysay ololaha uu ku jiray waxyaabihii nasiib kuma saacidin inuu keeno uu soo celiyo mar kale iyo qadarta eebe laakiin waxyaabihii uu ka hadlay waxa kamid ahaa mushaarka ciidamada in uu sii kordhi doono oo uu badi doono iyadoo dadku ay xaqiijinayeen inuu rabay ama ku waday $500 inuu ka dhigo mushaarka ciidanka oo markaas ahaa 200 iyo waliba 30 oo gram markaasi ama raashinka askarta ahaa haddaba waa tahay daawadayaal saaxiibayaal marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayadoo markii horena 9 bilood mushaar lagu lahaa haddii haddana ciidankan Eritrea ka yimid 5,000 ka badan ay heli waayaan xuquuqdooda arinta ugu weyn ee muuqaalkan usoo duubeen waxay tahay waxaa laga baqayaa halis ah in ay ciidamadan ay kala baxsadaan oo nin walba xirfadiisa ama sargaal ha ahaado ama askari ha ahaado marba haduusan xuquuq lahayn hadduu nool yahay hadduu dhintay in laga yaabo inuu gurigiisa aado haddaba arintan cidda kaliya ka hortagi karta waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wadankan isaga loo dhaariyay inuu ciidamadan xuquuqdooda sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku saxo maadaama miisaaniyadda dawladda ay ognahay 1 bilyan ay madax gelisay in mushaaraadkooda si toos ah u helaan in laga taxadaro in ciidankani ay kala huleelaan ama kala cararaan ama nin walba uu aado guriga hooyadii in la ilaaliyo qulubtooda iyo qulubta askarta guud ahaan Soomaaliyeed iyo dhalinyarada hadda kadib askarta qoran doonta haddii taa la waayo oo waxa weeyaan lacagtoodii wixii loogu talagalay lahaa la cuno oo mala yacni lagu bixiyo ama la boobo ama la lunsado ama masq uu hareeyo hadee waxa dhabar jab aad weyn uu soo gaari doona qarankan haddaba xagga dhismaha ciidanka halkan kaliya ma ahan kuwan hadda Eritrea ka yimid ma ahan laakiin arrimaha kale oo la yaab kale waxay tahay ciidamadii lagu soo tababaray dalka Turkiga lagu soo tababaray 3 biloodba mar waa joogsameen gabi ahaanba waa xirmeen ayaa la leeyahay ciidamadii Turkiga loo qaadayay in muddo ah hakad ayaa galay mana ajendaha ugu jirto madaxweyne xasan sheekh inuu arintaas sameeyo imaaraadka iyo masar ayaana loo badinayaa in arinta iyada ka hor istaageen warar iyo qodobo kala gedisan ayaynu haynaa oo nu idinka soo gudbi doonaa hadduu Allah wadale raali ka ahaado geeshkaygoo dulqaata inta insha Allah dhibta aad ka baxaysaan wixii aad dalka u soo barateen ku anfaca hadduu Allah wadale raali ka ahaado